بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maantay oo taariikhdu ku beegan tahay 1 February 2024 waxaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed lagu wargelinayaa wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Marwe Ambassador Khadija Maxamed Al-Makhzumi. wareegtada ayaa waxay u qoran tahay sida tan: ku socota wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ku socota waaxda kastamada ee wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Federaalka, og xafiiska ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, og wasaaradda maaliyadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, og wasaaradaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dawladda xubnaha ka ah dawladda federaalka, og maamulka gobolka Banaadir, og taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed, og xafiiska xeer ilaalinta guud ee qaranka, og rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliyeed, og dhammaan ganacsatada ay khusayso. ujeedo joojinta bacaha halka mar la isticmaalo. wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markuu arkay dhibaatooyinka ba'an ay bacuhu ku hayaan deegaanka Soomaaliyeed, markuu arkay qodobka 25aad farqadiisa koowaad ee dastuurka ku meel gaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kaas oo tibaaxaya ilaalinta deegaanka iyo xaqa uu muwaadiniintu u leeyihiin in ay helaan deegaan nadiif ah, markuu arkay qodobka 72aad ee sharciga ilaalinta maaraynta deegaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kaas oo mamnuucaya bacaha fudud iyo dhammaan wax kuwa ay isku bahda yihiin, markuu tixgeliyay muhiimadda ay leedahay in lala jaan qaado shuruucda ilaalinta deegaanka ee bulshada Bariga Afrika oo ay Soomaaliya dhawaan ku biirtay, markuu sameeyay wada tashi lala yeeshay rugta ganacsiga iyo warshadaynta Soomaaliyeed, khubaro kala duwan, bulshada rayidka ah iyo dadweynaha, kuwaas oo ku aadanaa dhibaatada bacuhu ay ku hayaan deegaanka iyo baahida loo qabo in la helo bedel. wasiirku waxa uu soo saaray qodobadan hoos ku xusan: 1. in gebi ahaanba Soomaaliya laga joojiyo soo dejinta, dhoofinta, soo saaridda, ka ganacsiga iyo isticmaalka bacaha fudud ee halka mar la isticmaalo laga bilaabo 30 Juun 2024. 2. in dhammaan ganacsatada soo dejisa bacaha, warshadaha soo saara, ganacsatada tafaariiqleyda iyo goobaha ganacsi ee dalka lagu wargelinayo in laga bilaabo 30 Juun 2024 aan bacaha fudud ee halka mar la isticmaalo dalka laga soo gelin karin lagana isticmaali karin. 3. wasaaraddu waxa ay dhammaan shirkadaha iyo ganacsadaha ku dhiirigelinaysaa hindisada beddelka bacaha kuwaas oo aan deegaanka waxyeelo u geysanayn. wasaaraddu gacan ayay ku geysanaysaa taageeridda ganacsatada ku hawlan sidii ay u heli lahaayeen walxa beddel ka noqda bacaha halka mar la isticmaalo. haddaba waxaa lagu wargelinayaa dhammaan ganacsatada iyo shirkadaha ay khusayso warqadani in ay u hoggaansamaan awaamirtan kor ku xusan. waxaa laga codsanayaa dhammaan hay-adaha dawladda ee warqadani ku socoto inay gacan ku siiyaan wasaaradda dhaqangelinta wareegtadan. mahadsanidin.